waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal guud ahaan soomaalidu waa ummad wax akhriska iyo wax qoristuba ay ku cusub yihiin sidaa darteed waa ummad idaacadaha aad u dhagaysata oo jecel waxa dunida ka dhacaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah markaan anigu garaadsadayna dhalinyaro iyo waayeelba wararka uu wariyuhu tabinaya ka sokow af soomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiirsan jiray wariyayaasha ayaa la kala baran jiray sidaa darteedna maalinta hebel uu warka leeyahay ama barnaamij hebel uu isagu tabinayo si wacan baa dhagaha loogu raaricin jiray hebel kale maalinta uu sheegayase codka raadiyaha ayaa la iska gaabin jiray waa la iska dhigi jirayoo waxaan garanayaa iyada oo dhallinyaradu ay isku daydo weliye hebel inay dhaajiyaanoo sida uu u hadlo ay iyaguna u hadlaan erayada uu badanaa adeegsadana ay weerahooda ku soo daraan wariyayaasha markaas goobaha warbaahinta ku cusubi waxay isku hawli jireen kuwii ka horreeyey ee caanka noqday midkood inay isu ekaysiiyaan si aqoonsiga dadweynaha ay degdeg ugu taabaan waxaa kolka jiray warfidiyeenno lagu daydo idaacadihii af soomaaliga ku hadli jirayna ka howlgeli jiray waa sannadihii kontonnadii lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaad iyo guud ahaanba wixii qorista afka ka horreeyey cismaan sugulle maxamed nuur cadde xaaji cabdi ducaale cismaan faarax kaahin iyo walaalkii axmed faarax kaahin cabdilaahi xaaji maxamed abshir waldo mustafa xaaji nuur cabdi xaaji goobdoon jaamac kharaf saleebaan daahir afqarshe cismaan xasan iyo walaalkii maxamuud xasan cabdulaahi xaaji cilmi raggaas oo aanu hubo maanta dhallinyarada warbaahinta ka howlgashaa inaanay mid ama laba ka badan ka garanayni waxay ahaayeen afka oo aan qorayn raggii ku guulaystay war iyo warbixinba af soomaali baraxla oo dhadhan wacan leh inay dhegaystayaashooda ugu soo gudbiyaan dhabtii waxay ahaayeen dad badan oo aan ku jiro kuwii milgada afka ku baraarujiyey ee jacaylkiisa ku beeray maanta oo la joogo hay-addeed ma haynee beri marka la dego raggaas aan soo taxay iyo kuwii la-ayniga ahaaba waxay inaga mudan yihiin inaynu ku maamuusno sidii ay af soomaaliga u kobciyeen ee ay uga dhigeen af qaadi karaya fikradaha casriga ah iyo ereybixinta afafka qalaad ka soo jeeda ee ku jirta laamaha sayniska teknolojiyada iyo kasmooyinka bulshada dirkaba waa ragga ay da'daydu ku xusuusato aqoontii qabku weheliyey ee ay u lahaayeen afkooda iyo dhaqanka uu xambaarsan yahay muddadii ay idaacadaha ka shaqaynayeen waa kuwii afka ku soo daray erayo fara badanoo awal hore aan ku jiri jirin erayo ay afafka qalaad ka soo tarjumeen dabadeedna markii la macaansaday si fudud u soomaaliyoobay waxaa ka mid ahaa dayax gacmeed qaramada midoobay hanti wadaag horumar hubka halista ah hubka iswada hirarka gaagaaban hirarka dhaadheer hirka dhexe biyodhaca victoria barwaaqa sooran geedi socodka nabadda buulalayda goolan maandooriyayaal iyo qaar kale oo dhalaar noolba warbaahinta af soomaaliga ku hadasha aynu ka maqallo cid walibana ay adeegsato iyada oo aan la isku lurin in la ogaado halka ay sal ku leeyihiin iyo waagii ay afka ku soo biireen toona qaybtaa kooban ee taariikhda horumarka af soomaaliga ku saabsani waxay xusuustayda ku soo noqotay maalmo dhoweyd maraan dhagaystay warar dhowra oo wakaaladaha caalamiga ah ee warbaahintu ay afafka reer galbeedka ku faafiyeen dabadeedna howlwadeennada qaarkood ay af soomaali u soo rogeen nasiib darro hawshaas iyada ah howlwadeennadii dhabarka u ritay kuma ay guulaysan sidaas awgeedna dadkii wararkaa loogu talagalay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan
aan haddaba soo qaato warar tusaale u noqon kara gafafka ay wariyeyaasha qaarkood ku dhacaan marka afafka shisheeye ay warka ka soo tarjumayaan. tusaalaha koowaad, sida ay dad badani la socdaan, dowladda Afghanistan waxay isku daydaa wadahadallo toos ah inay la yeelato dhaqdhaqaaqa Daalibaan ee ka soo horjeeda. taasina sida badan qarsoodi bay ku dhacdaa. sanadkii ina dhaafay ayaa haddaba wadaad aan ururkaas ka mid ahayni wuxuu iska dhigay inuu ka mid yahay oo weliba uu yahay ergey iyaga ka wakiila, ayna u soo dirsadeen dowladda inuu wadahadallo la bilaabo. kol dambe oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen ayay dowladdu ogaatay inay god khiyaamo ku dhacday. taasna waxaa lagu shaaciyey afafka dunida lagaga hadlo intooda badan. dad fara badan oo aan ku jirayn casariiq mar ay ahayd ayaanu maqalnay wariye Soomaaliyeed oo isla warkaa inta maraha afka Ingiriiska ka soo tarjumay oranaya Mullah Ahmed Mansuur oo Daalibaan iska dhigaya ayaa muddaba wuxuu la xaajoonayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan, kuwaasoo uu lacag badanna ka qaatay. hase yeeshee mar dambe ayaa waxaa la ogaaday inuusan ahayn nin run ah. nin run ah sida muuqata oraahdaas warka ugu dambaysay waa mid erey looga soo tarjumay afka Ingiriiska, waxaana laga keenay weedha ah Mullah Mansour was not the right man to negotiate with. waan hubaa Soomaali badan inay la yaabtay oo sida warkaa loo Soomaaliyeeyey markay maqashay ay isdhugatay. maxaa yeelay nin aan run ahayn sibay u garanaysaa, si aad iyo aad uga fog wixii uu wariyuhu uga dan lahaa. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tusaalayaal hor leh oo ku saabsan tarjumaadda ereyga ku saraysan sida loogu marin habaabo.